maalin wanaagsan daawade waxaan muuqaalkan kugu la wadaagi doonaa waxyaabaha ka cusub isticmaalka aaladda caqliyadda macmalka ah ama garaad samayska leh ee loo yaqaano artificial intelligence iyo sida wadamada qaar ay xoog iyo tartanka ugu jiraan inay noqdaan wadamada ugu horeeya ee hogaamiya farsamada iyo isticmaalka tiknoolajiyadan casriga ah. haddii aad nagu cusub tahay channelka waxaan kaa codsanay inaad nagu soo biirto aad ka mid noqoto asxaabta ku xiran bogga si aan kuula wadaago xogta ay tahay inaad ka ogaato tiknoolajiyada maanta gashay kacaankeedii afraad ee warshadaynta, taasoo qasab ka dhigaysa in qof walba uusan ka harin doonta shiraacan ee tiknoolajiyada iyo waxa ka cusub. aan ku bilaabay tiknoolajiyadan casriga ah ee loo yaqaano artificial intelligence ama garaad samayska macmalka ah ee aan dhabta ahayn. waa tiknoolajiyad ka samaysan qalabyo iyo software la isku xirxiray, taasoo loogu talagalay inay u shaqeyso si ka agdhow sida uu aadanaha u shaqeeyo. tusaale ahaan, la sheekaysiga dadka, qabashada shaqooyinka caadiga ah ee maalinlaha ah, xal u helidda problemyada ama dhibaatooyinka sida joogtada ah u qabsada dadka. waxaa jira tiknoolajiyado fara badan oo laga sameeyay aaladan artificial intelligence oo aan maanta muuqaalkan iyo kuwo kaleba aan lagu soo koobi karin. waxaanse idinla wadaagayaa qaybo yar oo muhiim ah oo nooga filnaan karta inaan wax badan ka fahanno siday u shaqeyso aaladan, oo ay ka mid tahay sida loogu isticmaalo waxbarashada, dukaameysiga, ka adeegsashada suuqyada, iyo sida ay u fududeysay soo qabashada dadka dambiyada kala duwan gala sida tuugnimada, dilka, kufsiga iyo wixii kale la halmaala. dowladda Shiinaha oo kamid ah dalalka horboodaya rabtan inay noqoto xarunta farsamada iyo hormuudka tiknoolajiyadan garaad samayska ah ayaa dhaqan gelisay dhowr tijaabo oo guuleystay oo ay kamid tahay inay dhaqan gelisay in loo isticmaali karo fasalada ardada ay wax ku bartaan. macallimiinta iskuulka ayaa awood u leh inay si fudud ku ogaan karaan ardayga galaaska ku jira ee aan ahmiyadda buuxda siin casharka uu macallinku bixinayo. waxay dhiseen aaladan cusub ee artificial intelligence oo suurtagal ka dhigaysa in la cabiro arday walba iyo heerkiisa la socodka fahamka xiisada macalinka. macluumaadka arday kasta iyo heerkiisa fahamka waxay si toos ugu dhacaysaa taleefanada ama kombiyuutarada maamulka iskuulka iyo waalidka ardayda, taasoo fududeynaysa in waalidku ogaadaan caruurtooda heerka iyo fahamka waxbarashadooda. aaladan ayaa ah qalab yar oo madaxa looga xirayo ardayda inta uu galaaska ku jiro, wuxuuna bixinayaa 3 signal ama tilmaam oo sheegaysa heerka la socodka ardayga xiisada uu macallinku bixinayo. tilmaamta koowaad wuxuu bixinayaa kalarka guduudka ama casaanka ah oo ka dhigan ardayga si sax ah ula socdo macallinka. sidoo kale haddii uu bixiyo kalarka buluuga ah, waa astaan sheegaysa in ardayga uusan la socon casharka macallinka uu bixinayo, halka signalka saddexaad uu yahay kalarka cadaanka ah oo ka dhigan in systemka qudhiisa wax ka qaldan yihiin ama uusan shaqaynin. qalabkan ayaa waxaa ku jira dareemayaal ka samaysan 3 macdan oo 2 kamid ay ku jiraan qaybta dambe ee dhagaha, halka midka kalena uu ku xiran yahay qaybta hore ee foolka wajiga. waxaana loogu talagalay inay ururiyaan xogta ka imaanaysa neerfayaasha maskaxda iyadoo si toos ah ugu gudbinaysa maamulka iyo waalidka intaba. sidoo kale iskuulada ayaa loo dhisay qalabyo rabad ah oo waalidka iyo macallimiinta ku ogaan karaan arday walba iyo caafimaadkiisa. haddii ardayga uu ku qandhoodo galaaska gudihiisa, waxaa waalidka iyo macallimiintaba u dhacaya fariin ah in ardayga ay xumadiisu sareyso una baahan yahay in si gaar ah loogu qaado goobaha caafimaadka. waxaa la hirgeliyay sidoo kale in uniformka iskuulka ay ardayda xirtaan lagu xiro qalab ama jib yar oo lagu ogaan karo meel kasta uu ardaygu ku sugan yahay, taasoo ka dhigan in ardayga uusan aadi karin meel ka baxsan meelaha loo qoonday inuu joogo ee ah guriga ama iskuulka. ardayda qaar oo wax laga weydiiyey sida tiknoolajiyadan ay u arkaan ayaa sheegay inay uga dhigan tahay in noloshooda ay ku qaadanayaan xabsi kor ka furan, maadaama xitaa telefoonada aysan isticmaali karin. oo haddii ay isku dayaan inay isticmaalaan telefoonadooda, waxaa jira kaamirooyin galaaska ku xiran oo fariimo u diraya maamulka, taasoo keeni karta inay ciqaab ku muteystaan. dalka Shiinaha oo kamid ah dalalka ugu horeeya ee raba inuu noqdo xarunta ugu weyn dunida ee lagu farsameeyo tiknoolajiyadan ayaa sidoo kale ka dhaqan geliyay suuqyada laga dukaameysto in macaamiisha ay ku bixin karaan lacagaha nidaamka loo yaqaan cashless economy, oo ah inaan la isticmaalin lacagta warqadaha, sidoo kalena aan loo baahnayn in la isticmaalo Mastercard-ka loogu talagalay in wax lagu iibsado. waxaa sahlay in macaamilka dukaameysanaya qarashaadka ku bixiyo nidaamka aqoonsiga wajigiisa ee loo yaqaan facial recognition. haddii aan si kale u dhigo, sawirka wajigaaga laga qaaday ayaa ku xiran akoonkaaga, kaas oo u fududeynaya in lacagta laga jaro akoonkaaga.
aaladan ayaa sidoo kale fududeysay in xal loo helo dambiilayaal badan oo markii ay dhibka geystaan isaga baxsada booliska kadib markii wadooyinka magaalada oo dhan lagu xiray kaamirooyin lagu keediyay dhammaan xogta muwaadiniinta oo haddii dambiilaha isku dayo inuu dib u geysto waxaa sawiro ka qaadaya kaamirooyinka kuwaasoo sahlaya meel kasta uu dambiilaha tago xogtiisa usoo gudbinaysa booliska ugu dhow xarunta uu joogo taasoo ka dhigan in dambiilaha uusan marnaba ka baxsan karin booliska ama uu tago magaalooyinka aysan ku diyaarsanayn